gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dhawaan la kulmay madaxweynaha dalka Soomaaliya. Haddaba Faadumo Siciid Ibraahim oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa arrintaasi soo noqoshada gudoomiyaha ka hadashay. Ortade waad iska garanaysaa annagoona cidna la kulmin meelna marin meelna tegin farmaajana ana hawadayadu xitaa ay sarkeen baa lagu campaign gareynayay wadani baa maxay xamar ku socota muqdisho ku socdaan Soomaali weyn weeyaan oo dacaayad fool xun runtii maxay la noo geystay imakana de waxa weeyaan Faysal waxa weeyaan gudoomiye xisbi mucaarada oo weyn marka waxa weeyaan hawl madaxweynaha u taala hawl isaga u taala weeyaan bal waxaanu eeginaa uun maxay bal wuxuu sameeyo iyo inuu sidaa kaga aamusan yahay inuu talaabo qaato way isaga jirtaa runtii waan daawanaynaa uun imika tan oo kale waxa u taala runtii baarlamaanka iyo madaxweynaha waayo waxa weeyaan albaab la furay imika deetana waxa weeyaan hadaa sidaa maxay lagu daayo lagu dhaafo waxa weeyaan in la ogaado qof waliba sidaas laag bay deetana sameynayaan deetana wuxuu noqonayaa albaab furan albaabaduna mar kastaba maxay albaab la furaya cidi kama daba tagayso uu sii furmaya ilaa maanta bahosha aynu ku jirno waxayna geliyay albaabadii la furay ee cidi ka hadli weyday ee cidi xidhi weyday baa imka maanta halka aynu joogno ina gaarsiiyay marka bal anigu maanta waan daawanaya uun runtii. Faadumo Siciid Ibraahim aqoon dheer ayaad u leedahay arrimaha dibadda waliba si weyn arrimaha aad la socotaa wasaaradda arrimaha dibadda maalimahan si baa loo dhaliilayay bal aqoonsigii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo markaad arrimaha isku soo xooriso maxaa adiga kaaga baxay kulata horta waxa weeyaan maxay ahayd qofna ku farxi maayo maanta halka arrimaha dibadda ay taagan tahay laakiin waa wax aanu sheegnay anu in badan baan ka hadlay waan sheegay waxaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa isku bedeshay dilaal waxa weeyaan maxay ahayd ma dhaafaysaba DP World waxa weeyaan degahayagiiba imaka wax kalaba ma maqlano for the last 10 years waxaanu maqlaynay uun maxay ahayd DP World war DP World arrimaha dibadda maxay ahayd kuma shaqo laha maxay qolada maaliyaddu bal ha la hadlaan maalgashiga wasaaradda maalgashiga ha ka hadasho laakiin wasaaradda arrimaha dibadda waxa looga baahnaa arrimihii international relationskii ee kale waxa la doonayay in la ogaado aqoonsigeenu halkee buu maraya dariiqee baa loo maraya dariiqee baa loo socdaa ambassadors-keennii dibadaha joogay maxay shaqadoodii ma ka soo baxeen mise may ka soo bixin asxaabteennii dibadda joogay yaynu la xidhiidhnay yaynu soo celinay maxay ahayd yaynu la kulannay kulamada dibadda yaynu maxay ahayd aynu cilaaqaad la leenahay imika maalintii dhaweyd annagu aan dibadda u baxnay shir weyn baa lagu qabtay baarlamaanka EU-da oo Somaliland lagaga hadlayay madaxweyne ku-xigeenku wuu cudur daartay oo muu tegin waati maxay duufaanadu ay maxay ka kaceen salal iyo muxuu ahaa ya awdal laakiin wasiirkii arrimaha dibadda waa wasiirkii dhammaan arrimaha dibadda arrimaha laga hadlayay Somaliland bay ahayd EU-da ka hadlaysay baarlamaankii EU-da ee Brussels baa la joogay waa arrimihii dibadda xagga uu joogay maantana maxay ahayd farmaajaba maxay ahayd kaaga saameyn badan dabadii waxa weeyaan macquul maaha wax maanta maxay loo dul qaadan karayna maaha marka runtii anigu baaqaan u diri lahaa madaxweynaha waxa weeyaan maanta oo kale macaaridi maxaafid ma kala yeelan kalayno waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa aqoonsigii iyo jiritaankii qarankeennii maanta oo kale waxa loo baahan yahay in gacmaha la iswada qabsado oo aynu qarannimadeennii soo ridano oo aynu meel ku tiirino marka waxa weeyaan madaxtooyadan fadhiyaya waxna maxay ahayd kama hadlaayo cid uma yeedhaayo cid lama hadlaayo maxay ahayd xisbiyadii mucaaradka waan iska fogeynaya waxgaradkii waan iska fogeynaya macquul maaha adiga maxaa kaaga baxay xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi muddada hadda jirto horta runtii maxay ahayd markii hore anagu waxaanu lahayn grace period la siiyo waxaan qofku markuu xukunka qabsado markiiba laguma boodo markiiba madaxa lagama qabsado
waxaanu isnidhi horta waqti sii bal eega horta maxaa xukuumadda siduu dhiso wasiiradiisa siduu dabatana wax u qabto bal inuu ka duwanaado kulmiyihii hore marka waxa weeyaan maxaa ahayd at this moment wax aan oran karayo wax weyn oo isbedel ah meesha ka soo socota taanu ma arkayo muxuu ahaa qof walba isaga madaxweyne walba isaga xor u ah siduu xukuumaddiisa u dhisayo bad laakiin marka ay noqoto nabadgelyada wadanka markay noqoto maxaa ahayd qarannimadeena iyo calankeena de keligii ma laha marka waynu wada leenahay guurtidaa leh baarlamaankaa leh xisbiyada maxaa ahayd qaranka xisbiya qaran baanu nahay oo annagaba waa lana soo doortay marka xisbiyada qaranka aqoon-yahanka kulli waa waajib ina saaran inaynu maanta ka hadalno war xaggee baynu ku soconnaa waddankanu xaggee buu ku socdaa maxaynu u baahannahay maxaynu qabannaa maxaynu maxaa ahayd ka hadalnaa marka runtii anigu waxaan leeyahay maanta haddaynu si degdega iskugu iman weyno innagoo weliba de maxaa ahayd macarid iyo maxaafid nimo iyo waxaa bartaa iska dhigna oo nidhaahna war innaka oo muwaadiniin somalilandala maanta maxaynu qaban karaynaa halkeebaynu joognaa maxaa inagu soo wajahan anugu mar horena waan sheegay waxaan idhi bad baa soo socota badda haddaynu maanta iska moosi weynana taasi wayna hafin doontaa batri koosaar maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.